Labada shirkadood ee filimada ugu waaweyn adduunka, Bollywood-ka iyo Hollywood-ka, waxay soo saaraan in ka badan 1,500 filim sanad walba. Ka mid noqoshada mid ka mid ah labadan shirkadood waxay u tahay jilayaasha guul weyn iyo riyo ay malaayiin dad ahi ku riyoodaan. Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Irfan Khan kaliya ma ahan kuwa guul weyn ka gaaray Bollywood-ka, laakiin sidoo kale waxaa guul ka soo hoyeen Hollywood-ka. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah jilayaasha Bollywood-ka ayaa sidoo kale diiday mashaariicda ugu waaweyn ee Hollywood-ka. Shah Rukh Khan waxaa loo soo bandhigay filimka Hollywood-ka ee Slumdog Millionaire, waxaana loo soo bandhigay doorka martida ee showga Who Wants to Be a Millionaire, yaa doonaya inuu noqdo milyaneer, kaasi oo ugu dambeyntii uu qaatay Anil Kapoor. Isaga oo ka hadlaya guusha filimka iyo qoqomanaynta diidmada doorka, ayuu Shah Rukh Khan goor dambe oo wareysi ah wuxuu yiri, "Waxaan arkay filimka, waxaana arkay in Anil uu qabtay shaqo aad u wanaagsan, wuxuuna u qalmay guusha uu gaaray." Priyanka Chopra ayaa loo soo bandhigay inay door ku yeelato filimka Immortalize. Waqtigaasi waxay ka shaqeynaysay filimka Seven Kahun Maaf ee Bollywood-ka, waxayna iska diiday filimka Hollywood-ka. Ugu dambeyntiina, Farida Pinto ayaa gashay doorkii Priyanka Chopra. Aishwarya Rai Bachchan waxay qayb ka noqon lahayd filimka xiisaha leh ee Troy, waxaa hogaaminayay jilaaga caanka ah ee Brad Pitt. Sida wararku sheegeen, waxaa loo soo bandhigay doorka Bryce, balse waa ay diiday, iyadoo igu wacan tahay in ay ku qanacsaneen in ay muuqaal qaawanaan ah kula wadaagto masraxa atooraha Brad Pitt. Lara Dud waxay fursad u heshay inay Keanu Reeves kala shaqeyso mid ka mid ah aflaamta ugu weyn abid, Matrix. Tani waxay dhacday kadib markii ay ku guuleysatay abaalmarinta Mrs. Universe sanadkii 2000. Aktriishadan ayaa xaqiijisay in loo soo bandhigay filimka, balse waxay ku qasbanaatay inay iska dayso maadaama hooyadeed ay xanuunsaneyd waqtigaas, sidaas darteedna ay dib ugu laabatay India. Atooraha caanka ah ee Bollywood-ka Hrithik Roshan ayaa loo soo bandhigay doorka Pinky Panther 2, oo ay sidoo kale aktriisha ka ahayd Aishwarya Rai Bachchan. Si kastaba wuu diiday dalabkaasi maadaama mashquul badan uu jiray xagga filimaanta Bollywood-ka, balse dadka qaar ayaa aaminsan in uu ka cabsaday in awoodiisa Bollywood-ka hoos u dhacdo haddii uu ku soo fashilmo Hollywood-ka. Jilaaga Govinda oo jilay filimaan badan oo majaajilo ah ayaa laga rabay inuu jilo filimka Avatar. Wuxuu ahaa inuu hogaamiye ama atooro ka noqdo, balse wuu iska diiday. Govinda wuxuu daaha ka qaaday wareysi uu dhawaan bixiyay, "Aniga ayaa siiyey magaca filimka Avatar. Waxaan u sheegay soo saaraha filimka James Cameron in filimkaagu uu si guul leh ugu socon doono shineemooyinka, wuxuuna qaadan doonaa dhamaystirkiisa muddo 7 sano ah." Intaas ayaan kusoo koobayaa jilayaashii iska diiday filimaan guulal waaweyn gaaray xagga shirkadda Hollywood-ka. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan ha ka ilaabin subscribe, share, comment, like adiga oo la wadaagaya asxaabtaada. Taasi waxay naga caawin doontaa in aan muuqaalo badan soo gelino. Haddii aad su'aal qaas ah qabto oo aadan doonaynin in ay ciyaalka xaafadda ka arkaan, nagala soo xiriir Facebook, Instagram, kaliya adiga oo raadinaya Daadir Xuseen Videos. Mahadsanid.